tahay diyaarkayga Borodci سؤال واحد هاي إنه شخص وصل 2016 كا هذا كان هو حكر بس إنه مشرح روتين الضغوطي جوش الله احتماله ممكن واحد كذا دلت معارض يو اس ام له هذه يو اس ام تو إني كمان أساساً مشرح كلا تقول الشيء يعني أبيك ما كتر نزول أرض كا أبغى بس مشرح ماذا سيلوري ما فهمت ما تايستا وهي هذه شن مشرح ملحت مصابح ضو لأن ما يعرف اللي يدخل مكان محمد عيد waa mahadsantahay horta mid baan nahay 2016 ururka IDDS baa dooran doonta qofka maaragtay maxaa ku dhalan shaqada noqon doona ismaaciil yuusuf haddii la yidhaahdo maaragtay maxaa ku dhalan cid kalaan maaragtay rabnaa dee qofkaas horta noqon doona waxay maaragtay ciday doontay qofkaas ta kale ururadu dee يسأل ها ثم قالوا يسأل هذه أي ما تسوي مكان ويلاحظان ما تكون هذا ما راح أقول أي مسؤول عني وإنه قادم دونا لا تقدر حولي تجدي أن عرفنا إن سياسة يوم دستورka waddanka ay doonayaan inay ku dhaqaan inuu yahay wax noo cuntaba ma garanaysaa oo aan ogolaano marka waa fadhiisanaynaa waanu wada fadhiisan wada sida maarata ururaduba waanu wada fadhiisan kolkaa wixii aan markaa ku heshiino ayuuban maarata kama dhigna ma garanaysaa ma wadaade waa dikadaan anagu soo dooranee annaga kani ma garanaysaa nagu raaca waa in maaragtay aynu wax wada dhigano waa in program aynu ogolahay ay yeeshii ma garanaysaa yimaado taas markay timaado waanu rabnaa ma garanaysaa maxaan ku rabnaa ta kalena mid baa jirtoon odhan lahaa ismaaciil cumar buu meesha iskama ridayo ismaaciil cumar waa qof weya بريتو المركزين بقولك إسماعيل عمر وحى ومش كوفا ديان والسياسة يعني مش كده إسماعيل عمر وبدرينه لإسماعيل عمر هي سياسة ديسة هي مش وصلوا ده مش وحى أوردن أيام فقنا مانت إلى بدل ما إسماعيل عمر بريتو هذه ما كفرضة إن جد أي سكول ديويرو الجوجات لسن لكن أي نوع بعد كفرضة برنامج مقدم الساعة عن سكت حرقنا أي كنا مركزي ولا فريسان ما أكتر كتوريه ولا سؤال يروح من الجراء يا بريء سعيد كتابه صدح الشيء Je vais parler en français pour les affaires qui écouteront peut-être ce message. Et deux questions. La première question, c'est vous savez qu'à Djibouti, il existe deux solitudes, Somalie et Afar. L'origine Afar, je le vois, je suis bien placé pour le dire. La question est de ce système qu'a créé Ismaël Omar. C'est un système basé sur le clivage ethnique. Il a approfondi. Il y avait un clivage avant, bien sûr, mais il a approfondi. La question est de savoir comment pouvez-vous réconcilier ces deux solitudes. Ça, c'est ma première question. La deuxième, comme vous avez vu les dégâts qui sont au nord, vous n'avez pas beaucoup de gens qui vont à l'école, le système éducatif est très faible, délaissé. Vous n'avez même pas les jeunes affaires qui vivent dans le nord n'ont pas
n'ont pas la chance ou l'opportunité de pouvoir travailler. Comment pensez-vous, quel programme, de manière concrète, comment pensez-vous augmenter, améliorer le système éducatif dans le Nord? Comment pensez-vous créer de l'emploi de manière à peut-être réduire ce clivage entre ces deux peuples? Peut-être par une décentralisation. Merci beaucoup. Mahadsanid Gaday. Horta waa run in dee waddanka afar iyo Soomaali in loo kala saaray. Dee ujeedaduna ay tahay sidii aan u sheegayay in dad u yimaada oo isku cid ah. Waxaan tegay New York baan tegay 2 sannadood ka hor. Yar afar oo ka shaqeeya safaaradda ayaan habeen uga fadhiyay. Dee waan sheekaysan oo dee af Soomaaliya afar kelimada. Haddii aad aragto mataqaanaa dhaqan ahaan iyo dadkii dad horta isku cidan dhibaatadu si waxayaan waa la kala saaray oo yidhi magaranaysaa tan uu sheegayo waa mid jirta. Horta dhaqaale ahaan markaad aragto markaan ka sheekeynayo Djibouti waxay sameeyeen tirakoob ay sameynayaan oo dadku shaqaale ahaan gobolada iyo magaalada Djibouti xitaa kala saaray oo arrondissemooga koowaad arrondissemooga labaad ka saddexaad ka afraad Cali Sabiix Dakhil Tajoora kolkaad arrondissemooga koowaad iyo arrondissemooga labaad oo guudkiiyo intaa iyo ku xidhan markaa boqolkiiba 7 ayaa ka shaqaalaysan. Markaad ka soo dhaadhacdeen arrondissement 3 iyo Belbeli iyo aad tagto Tajoori iyo Cali Sabiix iyo Ubuqyo boqolkiiba 80 ayaa la shaqaalay. kolkaasi waxaa jirta magaranaysaa tukano oo iyaduna maarta gooni oo gobollo laga guuray oo kale waa tii dagaalkii iyo magaranaysaa arrimihii ka dhaceen laga guuray oo ilaa imika dadkii kusoo noqon oo dhibaato weyn ka jirto. shaqaale ahaan baa meeshii jirta oo khusuusan dee dhibaataysan magaranaysaa dhalinyarta waddanka Tajoora anigu dee waa maarta haweenaydaydu waa afar weeyaan oo Tajoora tagay markii 2010 oo yara gaadhay dharaaro soo eegay wax aynan aqoonin baa imika maarta yimid dhalinyar dee waa gaangiyada halkan la naqaano oo gaanga oo dee maarta dee waxyaaba aynan weligooda aqoon u garanaysaa samaynaya. taasina maxay ku dhacday dee waa dhalinyar iskoolkii laga saaray binacaabadna dee maxay samay dee waxyaaba aynan maarta dhaqan iyo dee waxba aynan u lahayn ayay maarta ku dhaqaaqeynaysa. tamarta anigu aan isleeyahay waxay iyo horta xal u noqon doontaa in waddanka horta dhaqaalihiisu Djibouti yaallaa oo isaan ii sheegay Ismaaciil ayaa gacanta ku haya in waddanka maarta decentralisation in gobollada in la xoojiyo in la siiyo sida dee halkanba magaranaysaa ay u yihiin provinsiyada magaranaysaa ay awoodda ay u leeyihiin in awoodda la siiyo oo iskoolka la siiyo oo saxadda la siiyo oo wixii ay ku nidaamin lahaayeen la siiyo. ta kale dee maanta ciday doonta haato waxaa la odhanayaa qof baa la dooranayaa. war gobolka Cali Sabiix ka soo qaad gobolka Cali Sabiix
iyaa doorta dadka maaragtay maxaa rabaa meesha marmar ismaaciil cumar baa doorta ismaaciil cumar ma yidhi waa reer cali sabiixow dee intuu dooraba ha siiyo afar maaragtay maxaa rabaa dibitee baa layihi weliya amba maaragtay maxaa rabaa waddankan waxaan gobolkan aad joogtaan ee qofkii maamuli lahaa iska soo doorta muxuu waayo waa idinku kuwa aad u maraysaan rag iyo haween ciday doontaan noqoto idin maamuli kara eed ogoshihiin ee idin wadi kara maaragtay maxaa rabaa iska soo doorta kuwaasaana maaragtay idin hogaamin doona sidaasi le in wadanka ma garanaysaa gobolada ay cafarta ku nooshahay in la siiyo awood ay dadkooda ma garanaysaa hogaaminaya ay ku doortaan in la siiyo awood ma garanaysaa maxaa ay maaragtay isku nidaamiyaan in la siiyo sidaasaana maaragtay ku rabaa lagaga bixi kara waddan soomaaliyaba weynoognahay soomaaliya xamar ayuu wuxuu dhan wareegaa xamar waash maaragtay ku rabaa siyaasadda halkaa taa maxay kaa soo gaari haddaad maaragtay marada dayac ku nooshaa wax kaa soo gaaraya ma jiro kolkaasi maaragtay maxaa ku rabaa decentralisation sameeya ma garanaysaa oo gobollada awood la siiya ma garanaysaa isku maamulaan horta waxay ila tahay ma garanaysaa tu muhiima weeyaan meesha tahay waxaan hubaati anigu maaragtay ku rabaa waxaan ahay qof macallin ma garanaysaa ayaan ahay iskoolka iyo maaragtay ku rabaa waa educationku waa wax muhiima weeyaan in iyada la fadhiisto oo dadka la isku keeno la yidhaahdo war waddankani sidee baynu maaragtay ku rabaa tacliinteeda sare u qaadi kartaa waa in maaragtay farqi haddii waddanka Jabuuti tacliintiisa la hagaajiyo tacliintiisu iminka magaalada Jabuuti iskoolkii dowladda dee nin aanan waxba haysan bata nin aanan waxba haysan baa iskoolka dee qofay ku kaliftay ninkii in yar uu haystaa waxa uu dooranayaa inuu tago iskool maaragtay maxaa ku rabaa private waddankana haddii tacliintiisa wax laga qaadan waayo weligii horumar magaala victoria لو تكون هيسنا ولي دور سؤالات وكلام أقبل كذا يا كلام هذا يبغى عبد الغني هو يقول له واحد جعلنا هذه سؤالها يقول له كسوق الكلام سأل ما قالوا هذا الدور magacaygu waa Cabdiqani Qalbi anigu Jabuutiyaal bay laakiin waxaan jeclay wanaagga iyo maaragtay horumarka reer Jabuuti inkastoo Faransiiska ku hadal haddana maaragtay academic report ayuu gudoomiyuhu caawa halka ka akhriyay oo runtii aan aad u jeclaystay Jabuuti halka ay dhaqaale ahaan ku sugan tahay dad ahaan waxbarasho ahaan intaba markaan arkay waxa sawirku ii soo baxay Soomaaliya markay burburisay halkay maraysay oo kale markaa gudoomiyaha horta waxaan aad u jeclaan lahaa maadaama North America joogno English spoken country uu yahay si message-kiinu u gaaro ummadda kale ee reer Jabuuti ahayn in aad waraaqaha qaybinaysaan aad English ku turjuntaan maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed iyaga laftooda waxay jecel yihiin Jabuuti wanaaggeeda si markaa fariintiinu ay u gaadho dadka kaasoo la talabaad waxa aan rabay inuu gudoomiyaha weydiiyo bariga yareereen baa waxaan maqli jirnay Jabuuti taakul ciyaalaha وتربع عيال الناس أنا تاريخ جيبوتي والله يقبض يا ما أنت رقم مضحى كاهي تحت جيبوتي ولا شيء ما هبل الليل مركا halkan ninkii madaxweynaha ka aanu meesha ka iman maxaa ka filaysaa marka wanaag ka iman marka gudoomiye waxa iiga jawaabtaa Allah ka badbaadiyo oo laakiin it's unfortunate Djibouti bay haysaa jidkii Soomaaliya ay ku burburtay oo kale mise sidaas ma labaatanta horta waxaanu maaragtay odhanaynaa inkasta oon Soomaalida halkaa ay joogta
aanu ka xunnahay oo waddanka Soomaaliyeed ee walaalaha Niger iyaga aan jecelnahay magaranaysaa in uu dee noqdo waddan dhibaatadiisa maaragtay ka baxa waxaan leenahay ilaahay ha naga hayo oo in halkaasi aanan maaragtay maxaan ku dhahdaa mari taa markaa maaragtay ka dabay dee waxay ila tahay haddii maanta magaalada Jabuuti dhibaatada maaragtay maxaan ku dhahdaa ka jirta ee dhaqaaleed ee saxadda iskoolka ha ahaato haddii wax laga qaban waayo dee horta maaragtay marka way dhibi dee waata aynu arkayno waddanada maaragtay maxaa carabta Egypt ha ahaato Tunisia ha ahaato maxaa keenay in maaragtay maxaan ku dhahdaa ay qarxaan oo dee ay dagaalamaan dee marka maaragtay maxaan ku dhahdaa xaqdarradu ay heer gaadho marka maaragtay maxaan ku dhahdaa aada shahaadad soo qaadato eed sanad 2 3 4 sannadood aada bilaa shaqo noqoto dee marba gaari magaranaysaa maxaan ku dhahdaa inaad qaraxdo kolkaasi waxa aan rajeynaynaa haddii reer Jabuuti aynu nahay inta magaranaysaa waddanku dhibaatadiisu aynan sii ballaaganin inta magaranaysaa waddanku uunan maaragtay uunan qarxin in dadka magaranaysaa waddanka jecel dadka maaragtay xooladaa waddanka dantiisa iyo wanaagiisa raba in ay isku yimaadaan in ay maaragtay maxaan ku dhahdaa isku dayaan sidii ay maaragtay xal u heli lahaayeen uu waddankanina maaragtay xooladaa dhibaatada uga bixi lahaa waxaan jecelahay kolleyba haweenku inay ka qayb galaan su'aalaha siiba reer Jabuuti dhalinyar badan oo halka joogto reer Jabuuti halkaya inay gabadhaan maaha inay su'aalaha soo jeediyaan way halka yimaadaan baa jecelahay oo wixii ururkooda ku jiraan ba su'aal ku wareegaya ay halkan ka weydiiyaan guddoomiyaha kusoo dhawaada yaa bixin doona muuse kusoo dhow aniga su-aashaydu waxa weeyaan horta ururada faraada le macaarifadu waxa la ogaa inuu muxuu salaaxaya oo isa samayaan laga yaabaa blambiga in la samayn karo dad xoog wax ku dooni kara oo la soo geli karaa iyagoo ciidan والله وارين هذا يقول لنا بس أن أرتا وحى ماركتي وحى يلتها أن وأن أروم لي إني حاجة أكسنتها إن سيدي دايلوج ماركتي و أن أراح ليس أفسده من الله ولا فريستو سيدي بواحد لله رصاص ما يمنع كرتا لكن سوي حيا المركز رصاص تماتو يدو نتمات مردا ديواتري أي لا أفريقيا واتاسا نركينو إن كتير وده بيسوا وكونغو ويان أو ديمات مردا هذا كيسايو ديد قبيلكي ولما يجوا ديمات قبيلكي waxay ku darsadeen magaranaysaa in diintii la isku laayo oo maaragtay maxaan ku dhahdaa maaragtay Christian iyo maaragtay maxaan dhahdaa Muslim la isku laayo tikadaha maaragtay maxaan ku dhahdaa la isku gowracayo wax maaragtay maxaan dhahdaa subxaanallah kolkaasi waxaan oran lahaa anigu inta aynay maaragtay maxaan ku dhahdaa gaarin dagaal iyo magaranaysaa qori siyaabo badan oo maaragtay maxaan ku dhahdaa lagaga bixi kara dhibaatada oo maaragtay ta ugu horreysay siyaasad tahay ayaa maaragtay xoogaa habboon in lagu laysku dayo حسن المدومية هذين سؤالك اللي جينوا عن جعل هاي نفسه قبل برامجك واحد سؤاله قبل مجرى برامج كذي عاي كاسون هوين هاي
أديات برضو هذا يا مرتبة شرفت على نوت تبد موضوع قدوميها إسماعيل عبدي وسعودال كبير نص مري يو حقيقة جود أو فرحان حسن وحان لا يقول لك كل سعودال بدر أوكرانية لا يوروبا تجسيد وحدنا كل جالس فلسطين على كسي والهوشة أنا أقول وحان شو بورينا وأمكن هون يلا إلى بحسان أو بمرسم كان بحسان وبيجي $10 أما صنعتي هذا سكسي قديميسان $7 كليا أديان بدو ما عندي نجيتيال أما دبلنا على كسوق الجاي إباتك إيو كسوق الجاي كاشكا كسوق المشير يساعدوا في السنة أديان بدو ما ستين Thank you.